wardad baa xureeyay Soomaaliya xakaariyo xanuun badan adkaystay u xaartay dhufeeso xabadka dhulku dhigtay xabadooyin badan iyo xinjir u daadiyay xumaanka dhoray calanka oo xalaaleeyay dhulka xiiso u yeelay dadka ku xarakeeya xamar yiri midaan waa xasuus hore Soomaaliya xiskan ooga taal xaalkan maanta aan ku sugunnahay iyo xaaran ku naxyadan la yaabay ximintay leeyihiin mucaaradka xabad iyo xanuun nooga daran xeraday dagay iyo xaafadooda lama yaqaan la yiri midda waa xal adduunyo ee Soomaaliya xal kastoon ku sugunnahay aan la xirin calanka hal xiis geliyo dawladda markaan dhahay hal xiis geliyo dawladda waxaan ula jeedaa madaxda hala taageero oo hala gurbaantumo oo hala amaano askarta hala gowaabiyo hala dhiirigeliyo hala amaano isku duumi shacabay dawlad ku imaadahay qaar baa ku dhahay madaxdu waa malcuun qaar baa ku dhahay askartu waa mooriyaan qaar baa ku dhahay askarka dhaciyo boob iyo dilkay caadeysteen qaar baa waxay doonaan ku hadlayo qaar baa madaxda aflagaadenayo isku soo wada duub xaalkay ku sugan yihiin dalka waan aragnaa xaalka dalka uu ku sugan yahay waan aragnaa madaxda warkooda waan maqalnaa balsana adowgana warkiisa waa maqalnaa calooshu u shaqaystayo mucaaradka suxufiga dabaalka isku soo wada duub dhamaantooda warkooda waa maqalnaa balsana meesha waxa taala fartaada xumaatay filikaaga ma harto war haday madaxda xun yihiin anagayno xun yihiin askarteen haday dhaciyo boob iyo dilkay caadeysteen anagayno caadeysteen oo wax noo dhamo noo bedel malaha dawlad kasta day imaado la caynayo askari walbo imaado la aflagaadenayo wax noo dhamo noo keeno ma Itoobiya iyo Kenya iyo Uganda iska xilku dhiibanaa Soomaaliya waa may marka xaal kasto lagu sugan yahay la xirin calanka hal xiis geliyo dawladda khaasatan maanta waxaan dhihi lahaa dadka mucaaradka sheeganayo dadka madaxdeena ay caayeen caadeystay wariyaha dabaalka ah mikrofoonka qaldan iyo kaamirada la wareegayo dawladdiisa inuu sharaf dhiga caadeystay Facebook iyo YouTube ka dhigayo kuma tiyo leeg iyo sharaka raadinayo dhamaantood waxaan dhihi lahaa ruuxu Ilaahay dhufto dhabtooda la maqlaynin waayo hadaa sax u sheegto dhaxdana war waa qaldan tahay wuxuu ku dhahaa waa waalan tahay war Soomaaliya idin la wada waalan Soomaaliya dana dhaciyo boob iyo dilka caadeysatay Soomaaliya dana qafiif ah haddana ma waalanin waxaan waalanay barigiis geesigiis yaad baraha gumaca baaruud iyo gactriga geesraab laba dhaciyo gantaalka aan dalka ugu saareeni barigaas waxna qabtiyo tol iyo qaraabiyo aan u baahneen hadda ma aha bas wax tagay tiigsan malaha hadda dadkii waaweynaa iska daahi cunigii caloosha gala hadda calooshooyinsu ku soo waashtaa banaanka markuu soo baxo soo fakad fif qabiil hebel ah soo dhahaya soo bax uu soo baxa marka wax tagay tiigsan malaha wal xaal kasto aan ku sugunnahay Soomaaliya yaa la xirin calanka yaa la xiis geliyo dawladda madaxda la caayiyo dawladda been laga sheego war calooshu u shaqaysto soo duubiyo kaamirista qaldan wareego suxufi wax Facebook soo dhigo wax madaxda la aflagaadeeyo wallahi daryeel iyo dawlad kuma iimaanayso daryeel iyo dawlad waxay ku iimaanaysaa anaga oo danayna dawladeeno dadaal dheeraad aan muujino askarigii dareysatay darajadiis aan siino taasay dawlad ku imaadaa